waa taymka garabkayga waxaa taagan Baasha Cabdullaahi Yuusuf oo kamid ah saraakiisha SSC awal hore ka tirsanaan jiray maamulka Soomaaliland kadib markuu adkeysan waayay ka soo baxay kuna soo biiray ciidanka SSC ee xaqudurka Baasha ka warbixi hadda waxaad ku sugan tahay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool dagaalo badan baa soo maray marxalado badan baa soo marteen hadda halkuu marayo Baasha ka warbixi dadaalkiini iyo socodkiini aad ku timaadeen magaalada Laascaanood بسم الله الرحمن الرحيم horta waan salaamayaa saxaafadda madax banaan u halgamaysa dalkeeda deegaanka waxaan kaloo salaamayaa ummadda reer Simeero ba joogan waxaan leeyahay simcaan wanaagsan maalin wanaagsan dhamaanteen meel walba joogtaan shacabkayaga iyo dalkayga deegaankaygana waxa weeye dareenkan waa la qabnaa bulshada inta noo soo gurmatay waxa weeye artina iyo daaroodna waxaan leenahay ku soo dhawaad deegaankeena dalkeena dadku waa xor nabadgelyo waa laga safeeyay dareenkayga hadaan ka hadlo saaka shalay maanta way kala duwan tahay waa runta waxaan saraakiisha ugu horeysay dareenka ka qaadatay Soomaaliland kana baxday kuwii gadbeeyay dhumaantana maanta waa nala dareen oo waxa weeye iyaguna waxa weeye wax joogan deegaanadoodii waana shaqeynayaan annagana la mid yihiin in yaro maxaabiis oo meesha ku hadhayo wasiirro iyo wax la mid ah iyo hadii alba ku horeeyay iyaguna laakiin maxaabiis ah isuna qaba laakiin Soomaaliland oo shaqeynayaan waa arkayeen cali kooro gudoomiyaha baarlamaanka waxa weeye ka tanaasulay xilkoodii iyo shaqadoodii dadkiisa dalka noqday isagoo maagayo arkay marka saaka dareenkayga aad buu fiican yahay dalkayga deegaanka noo xor Soomaaliland waxa weeye dawladda ka tabanoo balan insha Allah hadii Allah wata hadii jeer waxay ku soo celiyaan kelmadda Laascaanood waxaan ugu la dagaalamayaa al-shabaab taa maxaad ka leedahay horta taasi waa iska hadlowayna ma garatay nin walba deegaankiisa iyo dalkiisa dadkiisa isagu buu halgamaya marka shalay iyagu markay dagaalamayeen in waxa weeye dawladii hore waxa weeye dalkii deegaankooda waxa weeye difaacan iyaga wax lagu sheegay waajibaad baa la lahaa waxaan meesha ka dagaalamaya waa la arkaa anigu shalay markaan sarkaalka Soomaaliland ahaa maanta wax meesha ka dagaalamaya waa kuwii uu dhulbaanta iyaga la shaqeynayay iyo wax la mid ah ciidankan Cabdimadoobana ninka hogaaminayay waxa weeye dagaalgaliyaha ciidamada waxa weeye ama watawaaniga aniguna sarkaalka shalay iyagu shaqeynayay maantana waxa weeye dalkiisa ku shaqeynaya baanahay marka wax argagixisada dhaan ugu jirto nalamana joogto waxa weeye mana noqon doono waxaan leenahay taas waa qof iska hadlay tabartaan sax ka noqotay tabarna uu noqon meesha saasi waxaan naga bedelmayso caalamka iyo waxa weeye muslimka dhanba waa arkaan inaanu nahay dad dulmadiida deegaankoodii dalkoodii lagu soo duulay maatadoodii laayay xortoodii laayay guryahoodii lagu gubayo suuq walba waxa weeye hoobiye lagu quraacinayo waxa weeye hadii alaba ku royahay madfac marka anagu waxaanu nahay dad shacaba oo isdifaacaya oo dalkoodii dadkoodii xortooda isdifaacaya laakiin wax la dhaho argagixiso laguma jirto ma noqon doono waata waxay sheegayaan oo baraha bulshada mareysay in ay leeyihiin Puntland baad dagaalka iyaguna ku jirta oo dabada ka riixaysa taana maxaa kala Puntland wax la dhaha ma joogan anaga Puntland iyo Soomaaliland waa isku kaayay mid waxa weeye iyagana tala waxay ku gaareen inaan Puntland waxa weeye hadii alba ku rooyay aan maamul dhubaanta dhismin ama maamul hartiyo kale Soomaaliland iyo Puntland loo dhaxan iyaga go'aan ku leh marka anaga wax Puntland lama jirto laakiin deegaanaha iyo noo gurmaday oo harti waa joogan laakiin wax Puntland lama jirto oo noo soo nala joogtaa weer iyo difaacba waa lagu hayaa waa ka dhacay xalay dagaalku waa soconayay saacado dambe maqlaseen waxa weeye waana socdaa laakiin maxay dagaalamaan anagu waanu baacsanaana halaagoodina meel fog baan mareynaa marka dagaalku waa socdaa mana joogsan saacad ma joogso dagaalku sool hadda Soomaaliland xagee ay fariismo oo ay ka soo tahay sool adhacday ugu soo meel Soomaaliland joogto ma joogto nawaaxigan waxa weeye Laascaano dalkii dadkii deegaankii raaba haysta Soomaaliland waxay joogtaa meel aan gabiir ku leeyahay 30 kiiloomitir u jirta waa laga safeeyay dalkii dadka ma ogtahay macmiil in bangiga Salaam Banki uu gaar leeyahay adigoo aan tagin xarumaha Salaam Banki inaad lacag dhigan kartid bangiga haddaba macmiil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid falna raac tilmaamaha soo socda garaac xidig